wafdi uu hogaaminayay agaasimaha guud ee madaxtooyada Somaliland Maxamed Cali Bile isla markaana uu kamid ahaa afayeenka madaxweynaha Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac ayaa soo gaaray magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceerigaabo waxaana duleedka galbeed ee magaalada Ceerigaabo ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Sanaag qaar kamid ah saraakiisha ciidamada qaranka cuqaal waxgarad iyo haween waxaana halkaasi hadallo soo dhaweyn ah ka soo jeediyay maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro waxaana kamid ah hadaladoodii Maxamuud halkan uu ka tagay Maxamed Cali Bile waa uu kow sanadka cusub ayuu la socdaa 93 ugu dambeysay sanadka cusub buu la socdaa marka khayr buu hogaaminayaa nabadii ku yimi dawladana wax weyn buu sidaa waxaan ku leenahay Maxamed Cali Bile ku soo dhaw meesha wafdiga hogaaminaya Maxamed Cali Bile agaasimaha guud ee madaxtooyada afayeenka madaxtooyada Maxamuud Warsame Jaamac waxaan leenahay soo dhawaada ku soo dhawaada gobolka Sanaag nimka cagaar dhulka dhignay دي افتح بقى نوتو وفتو غوريو نو يماداتي ان شاء الله قلقل baanu filayna wax badan sida waanu soo dhaweynaa waxa iyaguna dhankooda halkaasi hadallo mahadnaqa ka soo jeediyay afayeenka madaxtooyada Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada Maxamed Cali Bile waxaana kamid ah hadaladoodii hadalkiin dib u noqon doona waynu wada hadli doonaa horumarka xukuumaddu halkan ka wado iyo hawlaha fiican ay qabateen iyo halka aynu doonayno inuu uga sii dhaqaaqno waynu iska wareysan doonaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa maamulka gobolka degmada Ceerigaabo sida ay ugu bilatay sanadka cusub iyo nabadda iyo horumarka in Sanaag ay noqon doonto albaabka wanaagga iyo horumarkaba laga soo galo dalka anagu talaabadii koowaad oo maanta wadnaa oo hadhow iska wareysan doonaa laakiin waxaan rajaynayaa inaan halka lagu kala hadhayne halka sida uu sheegay barasaabku inay noqon doonto talaabadii muftaaxayd ee fureysay ee horumarka iyo wanaagga iyo nabadda Sanaag iyadunba asal ahaan ummadeena halkan bay ka wada timid gobolka Sanaag waana halka lagu wada dambaynayaa nabadeedu iyo horumarkeedu Cabdirasaaq Maxamed Jaamac Sugulle Saab TV Ceerigaabo